degmooyinka Taleex iyo Xudun ayaa waxa lagu soo waramayaa inay ka dhaceen mudaharaadyo sida la sheegay lagaga soo horjeeday maamulada Somaliland iyo Puntland laguna taageerayay maamul cusub oo la sheegay loo sameeyay deegaamo ka tirsan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. warbixinta waxa noo soo diray wariyaha nooga soo warrama magaalada Laascaanood Maxamed Shaqale. deegaanka Taleex gobolka Sool ka dhacay mudaharaad lagu taageerayo hogaamiyaha Sool Sanaag Cayn Dr. Saleebaan Axmed Ciise Xagla Toosiye isla markaana loogu baaqay maamulada Somaliland iyo Puntland inay dhexgaliyaan rabitaanka shacabka deegaanadan oo doortay maamul ay ku midaysan yihiin isla markaana ay raali ka yihiin. dadka mudaharaadkan ka qayb galay oo ka kala socday dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Taleex ayaa socod dheer ku soo maray xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Taleex iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay ku taageersan yihiin maamul dhawaan loo sameeyay goboladan. mudaharaadkan oo ahaa mid si nabadgelyo u dhacay ayaa markii dambe iskugu tageen meel fagaaro ah halkaas oo hadallo kooban ay ka soo jeediyeen qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay mudaharaadka iyagoo si isku mid ah u xusay inay taageero hiil iyo hoob ay la garab taagan yihiin maamulka cusub ee gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. deegaanka Taleex ee gobolka Sool oo ka mid ah goob taariikhi ah ayaa ku biiray deegaano badan oo taageero xoogan u muujiyay maamulka goboladan oo xilligan fariisan u ah magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. iyadoo xusid mudan in mudaharaad lagu taageersan yahay maamulka Sool, Sanaag iyo Cayn uu ka dhacay degmada Xudun ee gobolka Sool halkaasi ay isugu soo baxeen bulshada ku dhaqan magaalada Xudun iyagoo muujiyay dareen ay ku taageersan yihiin maamulka cusub iyo hogaamiyaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. mudaharaadka ka dhacay Xudun ayaa ahaa mid si weyn ay dadka reer Xudun uga soo qayb galeen iyagoo markii dambe ay isugu yimaadeen khayriyada magaalada Xudun oo qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ay halkaasi khudbado ka soo jeediyeen. Maxamed Shaqale, Telefishinka Universal, Laascaanood.